dawga waxaan oga wadaanina dareensiine dawga waxaan oga wadaanina dareensiine dadweynaha iyo dawladow bal isku duubnaado waan ku dhawahay barnaamijka hargalka ee TV-ga RTN magacaygana waa Deeq Maxamuud Laxos oo loo yaqaano Deeq Dhaanto waxaan ku dhashay dalka Itoobiya gaar ahaan degmada Cadaadle halkaas baan ku barbaaray waxaan ku soo bartay waxaan ku sugnahay dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari magaalada Garissa saaxiibkay abwaannimada horta way fara badan tahay qaybta abwaannimo la dhaho abwaannimada hadii aad weydiiso waxna waa abwaannimo oo ma garanaysaa ee dhaxal ku imaata midna waa mid Ilaahay ku galiyay kulli hadda aniga abwaannimadayda maadaama wali aan iska ahay arday oo hadee abwaannimada waaweyn aan dabada wali ana gaadhin maalinkan abwaannimo aniga isku yar qiyaasay horta dabcan xagan abtiyaasha oo kale ama xagan adeerada oo kale siiba raabtiga oo kale niman waxa ahaan jireen afareyda baasha la dhigi jiray dadka hore u garanhayo ee tuuri jireen laakiin aniga deeq ahaan maalinkii aan is-iri abwaan waad noqon kartaa hal abuur waad samayn kartaa 13 sano jiray ragana siiso mar 13 sano gaadho maskaxdiisa waxay tahay kala garan karaa maalinka arday baan iska ahaa ciyaal yar oo arday marka tixyar baan maalinka isku baroobayay waxaana ka arkay dadka abwaanada gabi hayaan iyo xaaladahooda waxaan siri waad gabi kartaa maanta tixda hadan soo qaado dugsi quraan baan markaa akhrisanaynay in iska horo kale dugsiga waxaan ugu la jiray gabdho yar waarweyn oo xoogaa anaga naga yarada asareeya gabadhii kamid aan iska jeclaaday ragna yaraan ma leh dood garanaysaa marka gabadha magaceeda waxa la dhihi jiray gabadha baxsan baa la dhihi jiray gabadha aniga ima qeyrsanayso qalanka iga xogta oo qada igu daadaysaa oo ninkayga ma qeyrsanaysa anigana meel cilaan taagana jacayl baa indhahay tirahay gabayga oo rabana wax yar ka taabto waxa ay baxsan ee balaaday adduun bariba waa cayne baxsan ee jacayl baa xad la beerka ii degay baxsan ee bidhaantaada waa hawsha oo badan bushi iyo jacayl baa galay beer meel qaban baa marka gabaygu horeey gabaygaas waxa kadib waxa jira saad ogsoonaydba qaybtaydii dhaqanka yaan rabaa inaan wax yar ka taabto hidii dhaqan waxay ahaan jirtay dhaantada oo kale saarka oo kale iyo diisooga si wan walba u yaqaano waxayna ahaan jireen bila muusig ma lahan jirin marka dadka waa in duurka markii la tuman hayo dadka reer baadiyaha ama reer guraaga oo kale markay tuman hayaan dhaantooyinka dadka gabiyaan baa jira dhalinta marka saaxiibada waxay u boorin jireen inaan anig gabiyo oon halbixis ka soo saaro dhaantada baadiyaha marka laga tuman hayo aroosyada oo kale kadibna waxaan arkay aniga hoolka gabiyahaya oo hoolasha markaan tago kale leeyahay abwaanku yeedhan ka gabiyahayo waxa imaatay dhaantadii in isbedeshay iyo fanki inaan bedelay oon ku xirnay qaybta casriga hadda muusikada dhaantada muusikada oo intaan studio tagno muusika aan saaro aniga deeq ahaan aan ku luuqaynayo waxaan bilaabay 2016 dhaantadii horreysay muusika saaro 2016 baan bilaabay erayada waxaa kamid ah dhaantada jacayl bay ahayd hadda ayadoon muusika lahayn hal iyo laba haddaan ka sheego ana ku qaadahayo luuqad way fara badan tahay dhaantada lagu qaado dadka waxa iskaga dhunsan luuqadii dhaantada guuxay leedahay gacmo dheer bay leedahay dabaalay leedahay gurbis bay leedahay waxay leedahay deeri dhaanta la yiraahdo marka dhaantada waxaan ku qaaday guuxo
hunnoy baarey balxaroobe in la isbarata soo ma banaano hunnoy baarey balxaroobe in la isbarata soo ma banaano bitimine iberjacayle in la isbarata soo ma banaano bitimine iberjacayle in la isbarata soo ma banaano dhaanta noocaaba ahayd oo jacaylkaa ka saabsan maasha allah haddii aan ka hadla halka maanta aan joogno oo magaaladan Gaarisa aan ku sugannahay iyo dalkan aan joogno horta farqad badan baa u dhaxaysa waxa la yiraahdaa waxa jira la yiraahdaa qalbi ka dhoof waa dadka buufiska iyo ku xiran yahay oo dadka wadamada kale qalbi ka dhoof wax la dhaha ku jira marka dadka waxa ku jira fanki inay damacsan yihiin inay jecel yihiin waliba siiba marka hadda dhaantada oo kala aragto oo xalfadaha dhaanta loo galiyo ama hees dadka inta badan dhaantada jecel yihiin sababtaas oo keenaysa inay ka oranayaan dhaqanka hore Soomaaliyeed marka hadda halkan aan ku suganahay maasha Allah xageedii dhaqanka ama dhaqankeena Soomaaliyeed oo dhaantada iyo wax oo dhan ay tahay aad iyo aad waxaan u arkaa sida hore inay dhaanto hadda markii aan bilaabaynay iyo hadda marxaladda ay marayso inay hadda kor uga kacsan tahay waxa ila yaabadnayd qof caqabadiisa iyo abwaannimadiisu ay dhisan tahay oo hadda aad dhihi karto qofkan waaba qof madaxa lagu qabsan lahaa oo abwaannida hore baad dhihi lahayd waaba dhaxalkoodii buu geli karaa oo halkii fadhiya oo laga yaabo inuu himiladiisa iyo maskaxaantiisa maanta u imaado inuu meesha ka gabiyo hortiisana la marin hayo qof xarfi aan kala sooci karin waayo xarafkan ABCD weeyo wax kastood bilaabayso laga yaabo ninkii inuu ka bilaabo si inuu dhaxda ka geliyo marka arrimaha igu yaabadnaa kuwaas ahayn hadda labada wadan inoo xigta Soomaaliya iyo Itoobiya inoo xiga Soomaalidana ay ku badan tahay haddii ninkan abwaan uu yahay wuxuu leeyahay xushmad gees ixtiraamkiisa uu sareeya haddii la yiraahdo maanta magaalada aan joogno inta nin ay abwaane lama koobi karo magacooda lama xisaabin karo marka waxa la isku haystaa caqabada qarinaysa maxay tahay waxa qarinaysa abwaanki meeshan inuu ka yahay lacif kuwaana maxaa soo bixinaya inay taageerahooda kor u jiro horta abwaanada maadaama ay wada sameeyeen laakiin abwaanka aan deeqaan hadda aan dhageysto ama xarfihiisa ama gabayada uu tiriyo geeyiga Soomaaliyeed meel kastaba aad iyo aad moraalkaada u galahaya Allah u naxariisto doodaan kulli waad garab malayn tuqaas baa jira gabayadiisa waxaan ku daydo amaan ka qaato ilaana gabayga hada iska gabayda ma ah waa inaad miisaal u bixiso oo meesha aad taagan tahay aad ka cam qaado qabeeshinka aad ka hadlayso systemka maalinka ku socda marka Cabdullaahi doodaan abwaankan ka dambeeyo waxaan rabaa saaxiibkay inaan ku soo xidho gabaygaas oo ugu talagalahayo geeyiga maanta aan joogno bulshada iyo dadweynaha dhammaan iyo dawladooda gabay isku xidhayaan rabaa inaan tixir ka mariyo gabaygaas oo ku marin rabo sidii luqadii hore ku mari jireen abwaanadeena dhintay Allah u naxariisto ma gaari kara laakiin bal inaanu xusuustoodii soo gelino dada gabay dalilkii wagliyo dawgay maasadaye dada gabay dalilkii wagliyo dawgay maasadaye afartan dalxeye wixii darajadaydiye afartan dalxeye wixii darajadaydiye hayeeshee dalilkii waglaan soo dallaacayaye hayeeshee dalilkii waglaan soo dallaacayaye
dawga waxaan oga wadaanina dareensiine dawga waxaan oga wadaanina dareensiine dadweynaha iyo dawladow bal isku duubnaado cir hadduu daruur saarago dafta ka hilaaco cir hadduu daruur saarago dafta ka hilaaco duhurnimo hadduu horaho dhibiicu soo daato duhurnimo hadduu horaho dhibiicu soo daato dadulaan dulceeyiyo hadduu dogu soo baxaye dadulaan dulceeyiyo hadduu dogu soo baxaye deegaan barwaaqa jirto lagu dakayaaye deegaan barwaaqa jirto lagu dakayaaye dawga waxaan oga wadaanina dareensiine dadweynaha iyo dawladow bal isku duubnaado